haddii aad isticmaasho kombiyuutar ku shaqeeya Windows 10 muuqaalkan muhiim ayuu ku yahay la dhamayso. Shirkadda Microsoft ayaa shaacisay inay joojinayso taageeradii ay ku bixin jirtay nidaamka Windows 10 laga bilaabo 14 bisha Oktoobar ee sanadkan 2025. taas micnaheedu waa in wixii taariikhdaas ka dambeeya shirkadda Microsoft ay ka joojin doonto amiisha Windows 10 cusboonaysiinta amniga, security updates iyo caawinta farsamada technical assistance. haddaba markii la gaaro 14 Oktoobar 2025 kombiyuutarkaaga ku shaqeeya Windows 10 wuxuu noqon doonaa mid khatar amni ku sugan, wuxuuna u nuglaan doonaa weerarada ka dhaca dhanka internetka iyo firuusyada saameeya kombiyuutarada. daawada waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaan samayn karaa. waxaa jira 3 wado oo muhiim ah. talaabada koobaad waa in aad u cusboonaysiisaa Windows 10kaaga Windows 11. talaabada labaad iibso kombiyuutar cusub oo wata Windows 11. talaabada saddexaad ayaa ah barnaamij la yiraahdo ESU Extended Security Updates Program. barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa in aad hesho weli cusboonaysiinta amniga muddo gaaban kadib 14 Oktoobar 2025. laakiin waa xal ku meel gaar ah. ugu dambeyn waa inaad u guurtaa Windows 11 ama aad heshaa kombiyuutar cusub. ugu dambeyntii, haddii aad sii wado isticmaalka Windows 10 kadib 14 Oktoobar 2025, kombiyuutarkaagu wuxuu noqon doonaa mid ku sugan khatar weyn. xogtaada shakhsi ahaaneed, faylasha iyo amniga internetkaaga ayaa si fudud loo jabsan karaa.